السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aad ku talagalnay. Haddaba jimco wanaagsan barnaamijku waa kii habeenimo. Waa habeenimo jimco oo sabti soo galayo taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha May sanadka 2025. haddaba barnaamijkeena caawa waxaan idinku soo gudbin doonaa warar waaweyn oo soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. ninkii Donald Trump ahaa oo la sheegay intii uu ku maqnaa baadda iyo cagajuglaynta dowladaha Carabta in xaaskiisii ay ka tagtay intii uu joogay baata magaalada Abu Dhabi ayaa wuxuu halkaa ka sheegay telefoon degdega inuu u soo dhacay oo wiil uu awow u yahay oo uu u baxay arrintiisa inuu soo arko. haddaba sheekooyin la yaab leh oo Donald Trump laga qoray intii uu Carabta baadoodii ku maqnaa ayaa la diirayaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa maxaa ka soo kordhay weerarkii ay ku qaaday Israa'iil maanta Xuutiyiinta. Israa'iil maxay ka tiri weerarka Xuutiguuse maxay ka yiraahdeen iyaguna wararkii ugu dambeeyaan idin hayaa. Qatar oo ka hadashay wafdiga Israa'iil ee ku sugan magaalada Doha. haddaba maxay sheegeen wafdigaasu maadaama Netanyahu uu soo diray. arrin cajiib ah oo ay Qatar ka sheegtay ayaan iyana barnaamijka ku faahfaahin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinku hayaa markabkii Mareykanka ee diyaaradaha xambaarayay ee ku sugnaa badda cas USS Truman ayaa iska tegaya sida Mareykanku ay sheegeen maadaama hawshii halkaa uu ka waday ay dhamaatay Mareykankana iyo Xuutiguna ay heshiiyeen. haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa. inta aan barnaamijka ku jirno warar wixii soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. haddaba waa habeennimo jimco ah oo sabti soo galayo. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa warar ka soo kordhay xaaladda Gaza. telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow qoray wuxuu leeyahay iyadoo la soo xiganayo joornaalka la yiraahdo Axios, Qatar waxay sheegtay inay aragtay wafdiga Israa'iil inaanay la imanin wax cusub oo wada hadallada ay ku soo kordhinayaan. haddaba warbixintu waxay sheegaysaa in la filayo in wafdigan ay sii joogi doonaan magaalada Doha ilaa maalinta Sabtida ah sida uu yiri Netanyahu inay halkaas sii joogaan. laakiin waxaa la sheegayaa inaanay wax cusub oo ay wadaan ama tanaasul ah aanu jirin, laakiin ujeedada uu ka leeyahay Netanyahu aan la garanayn. marka Qatar waxay leedahay wafdi uu soo diray Netanyahu ilaa Sabtida joogo dhahay Brito. sidii Trump markuu joogay ilaa hadda way joogaan ilaa Sabtida. haddana waa aragneen dhahan wafdigii ninkii uu soo diray Netanyahu wax cusub oo ay wadaan male. xasuuqina Netanyahu uu ka wadaa Gaza. marka maxaa laga wada hadlayaa haddaysan wax cusub keenin, tanaasul keenin, Netanyahu xasuuqiisii iska wato, dadkii reer Gaza la laynayo, maxay marka meesha u joogayaan tiri waaba la yaabanaa tiri. haddana Netanyahu ilaa Sabtida sii jooguu leeyahay. marka sheeko la yaab loo ah. marka dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin dadka Yuhuudda ah ee dadkoodu lagu haysto Gaza culayskooda ayuu isaga dabcinayaa. wafdigii waa diray wada hadalladii ku maqan yihiin inuu yiraahdo wax kale oo aan hayno oo aan ahayn arrinta ba jirtay leeyihiin. sheekada iyaduna soo korortay. dhanka kale warar cusub oo iyaguna ka soo kordhay maanta barnaamijkii galabnimo waxaan ku sheegay Israa'iil inay mar kale weerartay oo ay duqeysay Yemen 3 dekedood oo Xudayda ku yaala Raasul Aysa iyo Xudayda iyo inay duqeysay dekadaas. marka waray soo saareen Israa'iiliyiinta wasiirka gaashaandhigga ee Netanyahu labadaba. wasiirka gaashaandhigga wuxuu yiri waxaan dilaynaa oo target noo ah oo aan beegsanaynaa hogaamiyaha Xuutiyiinta Abdimalik al-Xuuti. Netanyahu wuxuu yiri tan waa bilow weerare istaba joog ah ayaan ku qaadaynaa nimankan Yamaniyiinta. ayagu ayadooda waa riteen. nin qaybta warfaafinta ka shaqeeya oo Jazeera u waramayo Xuutiga wuxuu yiri annagu mana la handadi karo dhahay ciday wax ka qaadi karaan male. say u soo socdaan meelaha shacabku joogay wax ku dhudhufanayaan waa laabanayaan iyagoo cararaay. laakiin wuxuu yiri
midaan ku dhigno arka saacadaha soo socda annaguna waa soo salaami doonaa Israa'iil waana la kala ordi doonaa marka waxay naga cunayaan ama ay maalinna dibcinayaan malaha dhahay marka sheekadooda labadooda halkaasay marka xaajo maraysa dhanka kale wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan mas'uul Mareykan in laga soo xiganayo markabka weyn ee diyaaradaha xambaara ee Mareykanka USS Truman ay leedahay oo dagaalka kula jira Xuutiyiinta oo dhowr jeer laftirkiisu nagta laga saaray inuu baxayo hadda bariga dhexe ka tagay Mareykanku waxay sheegeen in ayaga iyo Xuuti ay heshiiyeen bardabara ay Xuutigu u socon afaariisha ay ku jirin meeshaas markabkaas uu tagay marka waxa la Israa'iil laftirkeedu waxa ku sii adkaan doona khatar badan inay marka u bareeri doonto oo diyaaradaheedu wax difaacay ma hadda markabka uu difaacay meeshuu joogay waa hadda wixii Mareykan haday meesha ka tagaan hadee iyada laftirkeeda waxa leeyahay Iiraan iyo qolooyin kale inta u soo dhuntaan ay nagta ka saari karaan diyaaradaha marka Israa'iil laftirkeedu halka uu ku xun yahay Mareykankiina uu uga baxay sheekadu marka halka iyaduna way ka qasan tahay sheeko wareersan ayaa waxa leeyahay halka ka socota waayahay marka qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa sheeko la yaab leh caaw ninkii Trump ahaa intuu ku soo maqnaa carabti oo uu baad ka qaaday lacag ka guray xaaskiis ayaa ka tagtay lala tagay xaaskii la tagay hadaba sheeko la yaab leh oo ninka isagoo xataa waqtigii loogu talagalay dhamaysan booqashada ayuu cararay inkastoo isagoo xaas iyo arrimaha ka hadlin laakiin wuxuu yiri wiilan awoowa u ahay baan soo eegayaa halkaasaan u socdaa arrin degdeg ah soo gasho dhahay marka halkaas oo ku cararay sheekadaas marka qaybta dambe ku faahfaahin kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay caawa habeenimo Jimcaha sabti soo galayo barnaamijku waa kii saddexaad waa huba inaad si weyn uga hesheen macluumaadka iyo wararka barnaamijyadeena aan idinkugu soo gudbinay kii subaxnimo iyo kii galabnimo qodobo aad u xiiso badan ayaa ku jiray inta aan daawan way daawan karaan haddaba barnaamijka caawa qaybta ugu dambaysa waxaynu ku soo qaadanaynaa ninkii Trump ahaa oo maalmahan baad iyo wax walba laga qoray uu baadaya uu u hanjabayaa carabtii lacagti ka gurtay 4 maalmood gudahood 4 trillion oo ku qaatay oo lacaga ayuu carabtii kaga daldashay carabtii dhanaan qaylinaysa dadkoodii aqoon-yahankoodii suxufiyiintoodii kulli waa qaylinayaan waxa leeyahay ninkan waana daldashay sababta loo sii lacagta ma naqaaninay marka ninkii xataa qolooyin ajnabiga waxay leeyihiin ninkan carabtii intuu tagu ka soo qaatay baado uga soo qaatay leeyihiin lafoodii uga baqeen way cabsanayaan ninkii marka waxa leeyahay intuu hawsha ku mashquulsanaa oo shaqada ku jiray ayaa xaaskii ka sii tagtay waaba isdagaalsanayaan lagu leeyahay xaaska uu soo kaxaysan lahaa hore u wadwadan jiray ma soo kaxaysan xataa xaaskiisii lama socon safarkiisii ugu dambe haddaba sheekooyinka la yaab kale laga qoray waxaa ka mid ah intuu joogay Imaaraadka isagoo la jooga madaxda Imaaraadka wuxuu yiri dhageysta waa tagaya aniga wiilan awoowa u ahay ayaa la dhalay marka wiilkaas aan soo eegayaa rasuule Washington aan ku laabanaa uu leeyahay safarkii waa iska soo gabagabeynaa wiilkaas aan aadaa wixii waa duubtay waa qaat kadibna wiilkiisu aadaa laakiin sheekadu waxa leeyahay wiil waa ka weynta oo arrin maartay culusa jirta la leeyahay xaaskiisi iyo isaga way isdagaalsan yihiin way ka tagtay warneeyo aniga ma ku hayn kara nin fayow inaad tahay inaan nin wareersan tahay ma kala aqaan asaga iyo xaasku waa kala boodsan yihiin haddaba marka aan idin tuso warbixin uu ka qoray nin la yiraahdo kaatibka siirada ama qoraaga siiradiisa ama taariikhihiisa qora Trump oo uu soo xiganayo warbaahinta ayaa telefishinka Sharqul Awsat wuxuu leeyahay madaxweynaha Mareykanka iyo Melania way kala tageen munfasilaan macnaha waxa way dad aan hadda wada joogin oo aan wada noolayn way macnaha waa kala tageen waa kala haajireen munfasilaan way kala tageen
haddaba marka wuxuu leeyahay ninkan maraykanka ee arrimaha Trump wax ka qora waxa la yiraahdaa magaciisa Michael Wolff la yiraahdaa marka wuxuu yiri madaxweyne Donald Trump iyo xaaskiisa oo ah marwada koobaad Melania way kala tageen u leeyahay tamaman munfasilaan tamaman u leeyahay marka wuxuu leeyahay xogta aan hayno wax shaqo isku malaha ninkii Trump ahaa banaankaas laga maray marka odagii banaankaas laga maray marka waxa leeyahay muddo ku dhow buuq fara badan jiray markii uu xilka qabtay 2 isbuuc ka bacdiba fowdadan iyo qarracdan ayaa bilaabatay ninka iyo xaaskiisu maba wada noolu leeyahay ninkan marka waxa stress ka galiyay oo mar walba jaxiima xagga ka dhigaya Gaza waa qaadanaya kana sameeynaya xaggan sameeynaya waa in lacag laysiya ninkan maba waaba wareersan yahay ninkan naagta laga qaatay uu leeyahay ninkan naagti waa la qaato leeyahay munfasilaan labadoodu waa kala tageen ninka marka ninkii waa wareersan yahay haddaba ninka wax qoraa muxuu Michael Wolff la yiraahdaa siirada wuxuu qoraa ninka la yiraahdo Donald Trump warbaahinta dhana marka qaadanaysa ninkan waxa leeyahay carabta soo baadaya xagga ka dhacaya asaguna waa la bilil qaystay xaaskiisa la tagaa lagu leeyahay meeshii marka fawda ka taagan meeshii mushkilada ka taagan aqalkii cada qaylinay wuxuu leeyahay ninka wuxuu qoray waa beentiis wax ka jira ma jiraan laakiin ninka wuxuu leeyahay aniga cadeyma haya munfasilaan tamaman wali way kala tageen si dhamaystiran waliba wax yar xataa isuma harsan oo leeyahay ninka naagtiisu waa la taguulay sheeko wala marka halka ka socda ninka Trump asaguna waa la haystaa beero nin walba beero waxa uu shiday marka xaalku halka suubaraadi kuna fakari aragti waxa qabtaan noogu soo qora qaybta comments-ka iyo fariimaha barnaamijkayagii inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii habeenimo nabadgelyo